waxaynu nasiib u yeelanay in aan ka qayb galo idina aad qaadataan tababarka ay soo qabanqaabisay wasaaradda isgaarsiinta boostada iyo tiknoolajiga dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adda taakulaynta isgaarsiinta oo uu ka madax yahay maareeye Cabdisalaam Shariif oo ka socda World Bank wasaaradda dowladda Puntland warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska iyo agaasi loo qaatay inay tababarka bixiyaan maanta intaas oo dhan baan nasiib u yeelatay hawl yar ma aha muddo badan baa la sugayay markii aan xilka la wareegoynaymi hawlaha aad rajada ka qabteen in ay inoo furmaan tababarka baa ka mid ahaa أنا أقول الله يأفكا أجازن قيبت الترينينج بحنيسة هدي أن كهذا النقاش هذا وحي كوسا أبسنت هاي وحي هو سمعني صدح موديل أما صدح هو عوان وين عوانا صيا وانك وحيلنا يعني فاهين كان كهذا وحوي وداتا مانجمنتي إن براتيسيا الله سما داتا مانجمنتي هدا حفيز كجوتي هدي كجدد به سيدا الله ما مش هذا qaybta labaadna waxa weeye waa ICT skills xirfad ICT ah sida u baran lahayd tababarkani wuxuu ku saabsan yahay way sharaxaan agaasin waxa weeye waa computer filling backup of data safeguarding data management waa computerka sida wax loo gashto iyo sida mataqaanaa xogta loogu maamusho gudihiisa iyo mataqaanaa procurementiga waa kamid waxyaabaha la baranayo iibka in contract supervision waa kamid waxyaabaha la baranayo in qandaraasyada mataqaanaa dib oogis lagu sameeyo reporting waa kamid warbixinaha in la bixiyo mataqaanaa xagga dhaqaalaha waa kamid haddaan ka warramo agaasin iyo tababarkan runtii agaasin waa company ka shaqeeya horumarinta dadka sidii uu kor u qaadi lahaa xirfadahooda haday ahaan lahayd sidii loo hagaajin lahaa xafiisyada qaabka shaqooyinka aad looga horumarin lahaa dhanka human resource-ga sidoo kale waxaan sameynaa cilmi baaris waxaan qabanaa tababaro waxaan horumarinaa siyaasado la xiriira dhanka human resource-ga procurement-ga iyo xagga iibka la xiriira dhanka mataqaana maaliyadda tababarkan hadda aan qabanaynana waa tababar ah horumarin xagga ICT-ga iyo teknolojiyadda DMI